الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أو محاضرة نجيدنا وحي كساب سنتهي dhibaatada gobolada dhexe ka taagan khaasatan magaalada Gurceel la yiraahdo oo duulaanka lagu yahay. meeshaan marka waxaan ku soo qaadaynaa ciidamada dawladdu ay ka dirtay oo ay ka daabushay magaalada Muqdisho ee deegaanka loo diray. sida Soomaalidu ay og tahay dawladdan hadda jidha waxa taladeeda saameyn weyn ku leh ninka lagu magacaabo Fahdi Yaasiin. marka hadda caaway meeshaan waxaan ku soo qaadanaynaa ninkaasi waraysi uu la yeeshay Shariif Sheekh Axmed markii uu madaxweynaha ahaa oo ku saabsan jamaacada ahlu sunna wal jamaaca. waraysigaasoo marka ay ka muuqanayso cadaawada jamaacadaas uu u qabo iyo sida qolada shabaab lagu magacaabo uu u beer la xawsanayo oo marka uu u doonayo Shariif inuu qolooyinka marka la heshiiyo kuwaana in meesha laga saaro laga bixiyo. ninka marka noocaasihi waa dawladdan budhug buu u yahay ilaa xaalkiisu wuxuu gaaray dadku inay ku tilmaamaan in badan oo ka midi ay yiraahdaan waa milkiilaha dawladda ay yiraahdaan. ciidamada la dirahayo waxaan shaki ku jirinin taladeeda inuu asagu leeyahay xooggeeda wax shaki la yiraahdaa kuma jiraan. dhulkaas hadda ciidamada loo dirahayo muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa soo weeraray shabaab ayaa soo weeraray. waxay soo weerareen magaalada lagu magacaabo Bacadweyn. waxba looma qabanin ilaa markii dambe Bacadweyn iyo magaalo kale meesha ku taalla dadkii deganaa ay ka qaxeen. qayb ayaa ka mida markii ay ku soo noqdeenna intay marka hore la dagaalameen waxay keentay inay aqbalaan lacagtii xoogga ahayd oo laga qaaday. sidoo kale waxay ku soo duuleen magaalada Wisil la yiraahdo. waxa la tilmaami karo oo dawladdu ay ka qabatay oo ciidamadan hadda ay soo daabulaysa haba yaraatay ay ku soo daabusho ma jirin. waxa u yara awalba meelaha joogay oo qaarkood awalba ay ahaayeen ciidamadii ahlu sunna oo dawladda ku biiray oo ayaguna aan tiro badan ahayn. waxaa haddana lagu soo duulay magaalo kaloo saddexaad oo iyaduna nawaaxigaas ku taalla ayaa lagu soo duulay. ayadana sidaa oo kale wax garab ah oo dawladdu ay siisa ma jirna. magaaladana waxaa la yidhaahdaa Baxda ayaa la yidhaahdaa oo waa magaalo la yaqaan. marka qolooyinkan hadda ahlu sunna wal jamaaca markii ay soo noqdeen ayadoo dadkii deegaanka laftigiisu ay u gacan haatiyeen maxaa yeelay intii caradu ay joogeen wixii ayagu ay qabteen wixii ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa inay nimankaa la dagaalameen oo dadka ay deegaanka ka ilaaliyeen nabadgelyadana ay sugeen. wax kastaba dadku hadday rabaan ha ku dhaliileen. ayagiioo degaankii inta soo galay aad ugu soo dhowaaday magaalada la yiraahdo Dhuusamareeb oo 20 kilomitir ka yar u yimid sida la tilmaamay. bal garoonkeeda hoobiyaal ku soo riday intoo kalena u soo jirsaday magaalada Gurceel la yiraahdo. wax ciidan ah oo la soo daabulay ma jirin. ayadoo in badan lagu marmarsiyoonayo oo carrada la geliyay ciidankan waxaa loo dirahayaa in dawladda Galmudug la badbaadiyo oo wadaadada laga badbaadiyo. dawladda marka Galmudug ee wadaadada ahlu sunna laga badbaadinayo shabaabna aan laga badbaadinayn macnaheedu maxay ah? dadka marka ciidamada dirahayaay dawlad Galmudug la yiraahdaa inay jidho dhisnaato iyo inay burburto midna shaqadood ma ah. dana kale ayay u daleeyihiin oo markaa kala duwan. danahaas marka kan ugu weyn oo meesha ku jira waxa weeye ninka magaciisa aan sheegnay oo meesha hadda la taliyaha ka ah awal la jagooyin waaweyn ka soo qabtay dawladda hawsheedana ninka ugu daran markaa ah ee arrimahaas ku dhex jira siyaasadda ah in ninkaasi uu ahaa
nin weligiiba qolada ahlu sunna wal jamaaca nabca wuxuuna ka mid yahay qolooyinka kan wahaabiyada ah ee wax alla wixii ayaa ka soo haray u yaqaana inay mushrikiin iyo gaale ay yihiin markaa qaba in saaxada laga saaro qaba aaminsan marka ninkaasi su-aalaha isagoo wariye ah oo markaa wax awooda aan lahayn oo siyaasadda aan ku jirinin su-aalihii shariif sheekh axmed uu weydiinahaya ayaan meeshaan soo bandhigaynaa si marka yacni aad u ogaataan shakhsigaas ee 4 sano la eedaynahayay bal ninkaasi waxa uu qabay sida aad u ogaataan marka su-aashaasi waxay ku dhacday barnaamijka aljaziira ay leedahay oo liqaa'ul yowm la yidhaahdo cinwaanka marka uu u sameeyana waxa weeye liqaa'un khaasun shariif sheekh axmed taariikhda waraysigaasi uu dhacay waa bishii 8aad 26keedii 2009 markaana shariif madaxweyne ayuu ahaa ku meel gaar su-aasha ugu horraysuu weydiiye waxay ahayd waxaan doonahayaa buuye inaan ka bilowno waxyaalaha dhacdooyinkaa oo dambe inaan ka bilowno dhacdooyinka dambeeyey inaan ka bilowno shalay jamaacada ahlu sunna wal jamaaca waxay qabsatay magaalada lagu magacaabo beled xaawo ee ku taalla xuduudda soomaaliya iyo kenya u dhaxaysa magaaladaasi waxay ku dhacda iyaga gacmahoodii markii ay ka baxeen awoodihii xarakada shabaabulmujaahidiin mowqifka xukuumadaadu dhacdadaas ay ka joogtaa maxay tahay calaaqada idinka dhaxaysa adiga iyo qolooyinkaas jamaacadaas calaaqada ka dhaxaysa adiga xukuumadaada iyo jamaacadaasina maxay tahay bal dhegaysta hadalkiisa أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص مع فخامة الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد. أهلا بك فخامة الرئيس. سيادة الرئيس، نريد أن نبدأ من الأحداث الأخيرة. أمس سيطرت جماعة أهل السنة والجماعة على بلد حواء الحدود الكينية الصومالية، وسقطت في أيديها بعد أن خرجت قوات حركة شباب المجاهدين. ما موقف الحكومة من هذا الحدث، وما هو شكل العلاقة بين الحكومة وبين هذه الجماعة؟ أولا يعني هذا الحدث جزء من الأحداث الأخيرة التي كانت توالت بين الشباب من جهة وبين جماعة أهل السنة والجماعة. والموقف هو أن الجميع يجب عليهم أن يكونوا دعائم الحكومة، لأن بدون وجود حكومة مركزية قوية تسيطر على جميع المناطق الصومالية سيؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء، وإن محاولة تطبيق الشريعة على شكل جماعات وفرادى وفرض ناس على ذلك سيؤدي إلى مشاكل عدة. فنحن نؤمن بأن الإسلام هو الذي يأمرنا بالوحدة وليس بالفرقة، وإن التفسير الذي يتم الآن هو تفسير خاطئ للإسلام. لكن سبق وأن قلتم أنكم تدعمون جماعة أهل السنة والجماعة. دعمنا يأتي من قبل بأنهم تعرضوا لهجمات من قبل واعتداءات من قبل الشباب، وهذا واجب علينا لأن حمايتهم تقع على عاتقنا. شريفku arrintaa uu ka jawaabay si fiican buuna uga jawaabay, jawaabaha kulligoodna si wanaagsan buu uga jawaabay. ninkaas jawaabihiisoo dhanna waxay ku saabsanaayeen fakarka asaguu aaminsan oo xagjirnimada ah, oo weliba yacni ay aad uga muuqanaysay inuu xanaaqsan yahay, indhahana uu u shitay shariifka markuu su-aalahayo, oo innaba haba yaraatee wejigiisa dabacsanaan iyo wax faraxsanaan layidhaha aanay ka muuqan. su-aasha labaad uu weydiiyey waxay ahayd waxaa hore u dhacay inaad taageerteen jamaacada ahlu sunna waljamaaca, sidaasuu yiri. markaas shariifku arrintaa iyadana uu ka jawaabay, oo markaa wuxuu uga jawaabay qolooyinka shabaabulmujaahidiin la yidhaahdo inay muxuu ahaa ahlu sunna waljamaaca
ayagu ay hujuumeen inay ku xadgudbeen annagana marka waxaana saaran buy inaan ilaalino cadamaa wuxuu uga jeedaa aan Soomaali ra'iiskeedii aan ahay. su'aal saddexaad buu weydiiyey oo wuxuu yidhi bacdamaa adiga khalfiyadaadu ay tahay waxa lagu magacaabo tayaarka saxwada islaamiga ah oo haddana madaxweyne lagu doortay ma waanay iska hor imaanayn buu yidhi shakhsi oo tayaarka saxwada islaamiga ka mid ah iyo in muxuu ahaa aad taageerto jamaaca suufiya macnaha wuxuu ujeedaa inaad tahay shakhsi oo tayaarkaas ka mid ah haddana aad taageerayso jamaaca suufiya ah. shariifku markaa wuxuu ugu jawaabay jawaab wanaagsan buu arrintaa ka jawaaba wuxuu yidhi haddii taariikhda aan dib ugu noqonno xarakaadka suufiyada dhammaantood kulligood waxay ahaayeen xarakaad dacawiyaha oo dadka diinta ugu yeera oo tajadudiyaaye cusboonaysiin sameeya laakiin wuxuu ku daray markii qiyaadaadkii muxuu ahaa ay isbedeleen ayaa inxiraaf u yimid hadal noocaas oo kale ayuu markaa raaciyey. بل dhagayso hadalkiisa. لكن بما أنك لديك خلفية فيما يسمى بالتيار الصحوة الإسلامية وبعد أن انتخبت رئيسا هل أليس هناك تعارض بين شخص من التيار الصحوة الإسلامية أن يدعم جماعة الصوفية؟ لو رجعنا إلى التاريخ جميع حركات الصوفية كلهم كانوا حركات دعوية تجددية ولكن بعد فترة وبعد انتقال تلك السلطة إلى من ليس لهم حماس بمثل يعني أجدادهم وآبائهم حدثت هناك انحرافات والسبيل الأفضل هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وليس إلى القتال. وأعتقد بمنصبي كالرئيس يجب علي أن أتعامل مع الناس سواسية وهذا ما يطلبه الإسلام. فالإسلام يأمرنا بالمعاملة الحسنة وهذا ما نريد أن يعلم الجميع. سؤال أفراد wuxuu yidhi waxaa jiruu yidhi taqaariir iclaaniya ayaa jiruu yidhi maana taqaariir oo yacni muxuu ahaa dhanka kan hadda idaacaduhu ay sii daayeen ayaa jiruu yidhi oo markaa ka sheekaynaysa jamaacada ahlu sunna wal jamaaca inay yacni ayadu ku guulaysatay taageero uga timid awoodaha Itoobiya iyo nidaamka Itoobiya bacdamaa adiga xukuumadaada ku meel gaarkaahay aanay xukumayn kuwaas fakarkooda siyaasiga iyo amnigooda midna aanay xukumayn ma la xiriirteen xukuumadda Itoobiya si kuwaas inay u taageerto loo joojiyo marka ahlu sunna wal jamaaca uu ka hadlayaa laakiin ka hadli mahayo shabaab cidda taageertay oo waliba lagu yaqaano inay Eritreyaan tahay iyo meelaha wax uga yimaadaan bal dhagayso warkiisa. لكن فخامة الرئيس هناك تقارير إعلامية تتحدث من أن جماعة أهل السنة والجماعة تحظى بدعم من القوات الإثيوبية ومن النظام الإثيوبي وبما أنهم الحكومة الانتقالية لا تتحكم في تفكير هؤلاء السياسي والأمني هل تواصلتم مع الحكومة الإثيوبية لوقف هذا الدعم لهذه الفئة؟ نعم يعني طبعا أي تعامل مع مجموعات من قبل أي دولة هذا نحن نعتبره تدخل ومرفوض ونحن وضحنا رؤيتنا للحكومة الإثيوبية ولغيرها بأن دعم هؤلاء لا يجب أن يتم من أي دولة يتم من دولتهم ونحن مستعدون للتعامل معهم ودعمهم. سؤال شناب adiga haddii wuxuu yidhi lagu doorimaadiyo adoo madax u ah dowladda Soomaalida xarakada shabaabul mujaahidiin iyo jamaacada ahlu sunna teebaad fadilaysaa
inaad yani waxa weeye mucaawano la yeelato ma xarakada shabaab baa fadilaysaa mase waxaad fadilaysaayoo kaalmo iyo xiriir aad la yeelanaysaa ahlu sunna waljamaaca. shariifka laftigiisu meeshaan jawaab fiican buu siiyey oo wuxuu yidhi anigu waxaan mucaawano la yeelanayaa xarakaadka oo dhan iyo mujtamaca soomaalida dhinacyadooda kala duwan bacdama anugu aan shacabka soomaaliyeed oo dhan ba aan madax u ahay. anigu marka xarakaadka kula mucaamaloon mahayo inaan qola ayaga ka mida u aftirsado iyo inaanan kuwa kale aanan u aftirsanayn. meeshaa marka su-aalo kalena waa uu weydiiyey oo isla mawduuca guud la xiriira. waxaan markaan u gudbaynaa su-aal kaloo aan ka dhigayna midda lixaad. intaanan marka su-aashaa u gudbinin bal hadalkiisa dhegayso. لكن لو خيرت كرئيس للدولة الصومالية بين حركة الشباب المجاهدين وجماعة أهل السنة على من تفضل التعاون معهم؟ هل الحركة تتعاون أم تتعاون مع أهل السنة؟ الآن أنا أتعامل مع الحركات ومع شرائح المجتمع كرئيس للشعب الصومالي، ولا أتعامل معهم بأني مثلا أنتمي إلى مجموعة أو لا أنتمي إلى غيرها. su-aasha lixaad wuxuu yidhi qiimayntaada haddii la eego xarakada shabaabulmujaahidiin aad qiimaynayso oo lagu tilmaamay tilmaamaha maraykanka markii la eego jamaaca irhaabiya inay tahay, jamaaca argagixisa inay tahay, adigu ra'yigaas ma waafaqsan tahay buu yidhi oo lagu tilmaamo xarakada mujaahidiintu sidaa haddii la eego xukuumadda ku-meelgaarka oo macnaha wuxuu uga jeedaa adigu aad hogaaminayso dhinacyadeeda kala duwan. bal ayadana hadalkiisa dhegayso. من خلال التقييم فخامتكم حركة الشباب المجاهدين وصفت بمواصفات أمريكية أنها جماعة إرهابية، هل توافق هذا الرأي بالوصف على حركة الشباب المجاهدين من خلال أطر الحكومة الانتقالية؟ الأعمال التي يقومون بها أو النمط الفكري الذي ينتهجون بها نجد هذه الصفة في الشباب، لأن يعني لا يرون مسلما خارجا عن تنظيمهم، وهذا لم يحدث في الحقبات الإسلامية. يعني الخلاف أو اختلاف وجهات النظر تحدث بين المسلمين وبين الأسرة الواحدة، وهذا لم يقل فيه إلى حد التكفير أو إلى حد القتل. فالجماعة الآن أنا أراها إنها تنتهج تكفير الناس وقتلهم واستباحة دمائهم وأعراضهم، وأيضا تنتهج أساليب يعني أو تبدع أساليب مختلفة لترويع الناس. والقضية هي يعني الآن حكم الناس بالترويع، وهذا يشوه سمعة المسلمين، والمسلمين هم الأولى أن يعني يقولوا في هذه المسألة. su-aasha toddobaad wuxuu yidhi haddii la eego qaanuunka soomaaliga tandiimkan tandiimulqaacida lagu magacaabo oo qoladan tandiimkoodu u aftirsanahayo ma mid dembi galayba? iyadana dhegaysa warkiisa. فخامة الرئيس من خلال القانون الصومالي تنظيم القاعدة الذي ينتمي إلى هذا التنظيم هل هو مذنب؟ لا شك أن تنظيم القاعدة هو تنظيم إرهابي يستخدم جميع وسائل الإرهابية، منها التفجيرات، ترويع الناس، قتل الناس. وللأسف الشديد هذه الفكرة التي ليس لها صلة بالإسلام، لأن الإسلام اهتم برعاية وبحفاظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم. يعني المسلمون هم المتضررون أكثر في هذه الفئة، فلا شك أن هذا التنظيم تنظيم إرهابي وله
دور سلبي على المسلمين والإسلام. su-aasha sideedaad wuxuu yidhi meesha waxaa ku sugan qof odhanahaya adinka markii la eego xukuumaddiinnan soomaaliga ee macnaha wuxuu uga jeedaa adigu aad hogaaminayso waxaad ahaateen hadda laga bilaabo inaad diyaar u tihiin maraykanka inaad tacaawun la samaysaan waxa ku saabsan in lala dagaalamo irhaabka oo la garaaco xarakada shabaabulmujaahidiin ayadoo meesha ay ka muuqanayso in waxaa argagixisada loo yaqaano oo qolada laftigeeda ay ka mid tahay inuu diidan yaho ka xun yahay in maraykanka loo kaalmayso in la dagaalo baalki in la garaaco ayadoo hadda maraykan iyo kayr midna aan laga hadlaynin qolooyinkaasi qolooyin dadka laayay oo baabi'iyey weeye qofkii marka adiga ku dhibaataynaya oo saa'il ahe markaa ku soo weerara ciddaad u kaalmaysanayso wax alla wixii wax kaala qaban karo oo dhan baad u kaalmaysanaysaa nabigu marka khawaarijta uu tilmaamahayey wuxuu ku tilmaamay sharul khalqi waalkhaliiq makhluuqa ilaahay kuwa ugu sharta badan ayadoo gaala jidhu wuxuu ku tilmaamay makhluuqa kuwa ugu sharta badan nebi moxamed gaalo kale marka wuu u kaalmaystay maxaad u malaynaysaa qolooyin ayagu muslimiin u nisbo sheeganahaya oo nebigu xataa uu sheegay gaalada laftigeeda inay ka shar badan yihiin haddii marka qofku uusan waxba ka qaban karin ayagiina war aanay yeelayn hadda cid kasta oo yacni uu u kaalmaysan karo shareecadu marka waa ogoshahay maxaa yeelay waa qof saa'il ah oo adiga ku soo weeraray weeye qofkii adiga gurigaaga iyo dadkaaga soo weerara wax alla wixii kaaga kaalmayn kara waad u yeelanaysaa hadduu rabo gaal ha ahaade meelahaas markii uu marahayo ayuu haddana wuxuu weydiiyey su-aal su-aashaa waxay ku saabsanay wuxuu yidhi waxaad la kulantay buu yidhi haweentii wasiirka arrimaha dibadda ahayd ee maraykanka marka waad salaamtay buu yidhi adigoo yacni ah nin yacni wadaad ah oo sheekh magaca sheikha lagu yaqaano oo matala yacni qole ahludiina ka soo jeeda arrintaa bal ka warran buy su-aashaa runtii markii anigu aan dhegaystay aad iyo aad ayaan marka ugu qoslay maxaa yeele waxa weeye waa dhaqanka khawaarijta lagu yaqaano wey khawaarijta ayaa waxaa lagu yaqaanay dembiyada waaweynna inay fududaystaan dembiyada yaryarna wax weyn inay ka dhigaan ayaa lagu yaqaano dhaqankoodu sidaa uu ahaa oo hadda kutubta siirta waxaad arkaysaa khawaarijtii hore nin doofaar garaacay inay tacsiireen oo maxaa doofaar dhibaato u gelis asxaabu rasuulillaahi bayna gowrici jireen hadday markaa gacanta ay usoo galaan asagoo ninkaani fakarka uu aaminsan yahay iyo dadka uu ka mid yahay ay yihiin dadka gaalaysiiya ee muslimka ee afkaarta uga duwan ee dhiiggooda iyo hantidooda bannaysta ayuu hadda maanta wuxuu weydiinahayaa naag ajnabiga ayaad salaamtay ayadoo naagta ajnabiga in la salaamaa dembi kabiira aanu ahayn ee dembi sakiira uu yahay oo weliba dembigaasi uu yahay dembiga salaadaha shanta ah lagu dhaafo qofku haddii uu tukanayo wamaca daalika anigoo aan lahayn ninka madaxda ay ha salaamo oo loo baahan yahay ninka madaxa ahy inuu diintiisa ku mitido oo gaalada marka yacni waxba aanu fiirinin ayaga raalligelintooda maxaa yeelay ama raalligeli ama ha raalligelinin marna raalli kaa noqon mahayaano ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi walan tardaa canka alyahuudu walannasaare xataa tattabica millatahum yahuud iyo masiixiyiin raalli kaa noqon mahayaa ilaa diintooda aad ka raacdo laakiin qofka in lagu ceebeeyo fal nuucaasa inuu sameeyey oo weliba isagu uu ka jawaabay oo isleeyahay marxaladda markaa uu ku sugan yahay ayaa ku xambaartay ile dadkaani waxa weeye waa dad dhibaato badan weeye oo waxyaalahaas ayagu gaaladaahi howlaha noocaas oo kalea markay arkaan hadda aniga waddankan ka hor waxaa igu qabsaday mid qolooyinkan ka mida wahaabiyada ah ayaa arrin wuxuu iigu noqday turjumaan buu iigu noqday aniguna markaa isbitaal ayaan aaday marka meeshii uu yimid bay haweentii gaalada ahayd baa gacan taagtay waa uu diiday marka inuu gacanta ka salaamo ayadii marka way xanaaqday ilaa wuxuu uga tarjumahayay buuq fara badan cabbaar dhan bay la murmaysay ilaa ayagu waxa kan ma aaminsana mana yaqaaniin marka anigu waxaan aada ula yaabay waxaa la rabay inuu wax xeelaysto ayaa la rabay gacanta inuu wax ku qabsado
hadduu rabo inta waraaq soo qaata ninkii sidii nin diifahaya inuu iska dhigo in waxa weeye dadkaani ama markuu ugu yaraado inuu si tartiiba wax u fahamsiiyo aad bay u doodeen ninkii noocaasa ahaa oo musaafaxada ka dagaalamahayay isagoo isbitaal baalkii mutarjimka ah oo nin caraba uu leeyahay ayaa wiil uu dhalo lacag u qabanahayay igu xadgudbay xadgudubkaasna isagu wuu la socday odaygii baa hadalkeeni ku soo baxay meeshii marka waxaan idhi war waad og tahay wiilkan xadgudubkiisii waa kana aabbihiisa ka warra waa uu diiday inuu xadgudubkii u sheegay isagoo ilaalsanahaya shaqada meesha uu ka shaqaynahayo ayuu hadda nina uusan eriyey awalla wuxuu ka dagaalamahayay waxa weeye qof dulmi sameeyey oo qof xaqdarreeyey inuu markhaatigii qariyo iyadoo ilaahay qur-aanka uu ku yidhi walaa taktumu shahaadata waman yaktumha fa inahu aathimun qalbu qolooyinkan dhaqankoodu marka waa nooca su-aashaa marka hadda shariifka uu weydiiyey waxay xusuusisay wixii bukhaari cabdullaahi bnu cumar uu ka wariyey ayadoo cabdullaahi bnu cumar uu weydiiyey nin ahlu ciraaq ka mida ayaa wuxuu weydiiyey muxrimka oo muxrimku haddii dixsiga uu dilo yacni maxaa lagu yeelanaya hadalkuu ugu jawaabay markaa muxuu ahaa wuxuu yidhi ahlul ciraaqi yas'aluuna can qatli dubaabi waqad qataluu ibna binti rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi ahlu ciraaq waxay i weydiinahayaan buu yidhi dixsi dilkiisi bay i weydiinahayaan ayagoo nebiga gabadhiisa wiilkeedii dilay buu yidhi ayay weydiinahay waay marka bal dhegayso hadalkiisa فيما يتعلق بالعلاقة السياسية الصومالية الحالية هناك من يتهم الحكومة الانتقالية بأنها تريد الآن الحفاظ على العلاقة الغربية دون الاعتماد على الملف الداخلي. الملف الداخلي هو الأهم، وتعلم أن هذه الحكومة لها تأييد شعبي واسع، ولكن التنظيمات الإرهابية التي قامت الهجمات ضد الحكومة طبعا حالت بيننا وبين الشعب الصومالي. ما نريده الآن أن نبني مؤسسات الدولة سواء الشرطة أو الجيش أو ما إلى ذلك لاستطاعة لحفاظ الأمن والاستقرار، وأيضا علاقتنا مع الدول بصفة عامة أو بالدول الغربية مساعدة الشعب الصومالي، لأن الضرر الذي لحق الصومال ليس بإمكاننا لوحدنا أن نقوم بهذا الواجب، لذلك نحن نحتاج من يساعدنا سواء كان الدول الغربية أو الدول العربية أو الدول الإسلامية والإفريقية. لكن هناك سؤال مهم لا نستطيع أن نتركها، ربما تكون سؤال شخصي. شخصيا اشتهرت بالتدين ولقبت بالشيخ شريف ومن عائلة متدينة، لأول مرة صافحت امرأة أمام حشد من الناس، هل هي من ضرورات السياسة؟ لا شك، يعني الذي يعلم قواعد الشريعة ويعلم ضرورات الموجودة والظروف الحالية أنه يتفهم هذا الأمر ويتفهم للمصافحة مع النساء، لأنك صافحت امرأة أمام الناس. أعتقد أن في مجال الأحكام الشرعية يعني هناك كثير من الأقوال في هذا المجال، وأيضا الضرورة التي نحن فيها، يعني الذي يعي الإسلام بطريقة صحيحة هو يعرف بأن هذا هو الصح والطريقة الصح. سؤال سيديدات وهذا سؤالها أنت عنك سوقاتنا عنك ختمينه سؤالهنا ويبديه كل جوض ضمبة وحي كوري جيسنا هي موضوع كترجمة هي نينكا وحا قلبي سكب وحا هي وفكر كحق النوال لا يؤمن سيئة مركز سؤال سيديدات وحا ويقويري diyaar ma u tahay buu yidhi inaad la doodo xarakada shabaab ulmujaahidiin aad la doodo ayadana dhegayso. ما يتعلق بحركة الشباب المجاهدين، هل أنت مستعد للتحاور معهم؟ نعم، أنا مستعد أتحاور مع أي مجموعة أو أي شخص يريد أن يتحاور معنا. haddaba hadday arrintu sidaa ay tahay oo maanta duulaan lagu yahay magaalada Guriceel, waxaan markay yani dhanbaan u soo jeedinayaa dadka meesha tan hadda yani aan ku qoray magacyadoodii ayaan u soo jeedinahay.
marka ugu horeysa waxaan dhammaan u soo jeedinayaa Soomaaliya madaxa Soomaaliya ee maantay oo lagu magacaabo Maxamed Farmaajo. Maxamed Farmaajo waxaan leeyahay waan u soo jeedinayaa kollayba muddadii madaxweynenimada lagu doortay way dhamaatay. kursiga maanta hadda aad ku fadhidana waxaad ugu fadhidaa inaad gaarsiiso xilkii aad ama ku soo noqon lahayd ama qofkii ku guulaysa aad ku wareejin lahayd, ayadoo laga yaabo inaadan xilkan ku soo noqonin. maanta waxaan kugula talin lahaa xilkaaga inaadan ku khatiminin wadaadadaas ahlu sunna wal jamaaca weerarka la weerarayo oo ninkaasi uu ka dambeeyo ee weerar ku salaysan ah, caqiida ku salaysan ah. sidaas ayaan ku soo jeedin lahaa. waaya waxaan kaloo haddaba ku oran lahaa wiilkan hadda warkiisa aan ka soo sheekeeyey oo 4 sanama ninka aan la tashadaysay ah laguguna eedeeyey dadkuna yacni ay ku tilmaameen inuu milkiilaha dowladdaada uu yahay. anugu waxaan qabaaya wixii la mid yihi waxyaalo badan oo aad dhex gashay oo dhibaata ay kuugu timid, dhibaata kaaga timid oo guurdarro ku ahayd asagu inuu soo baxa. waxaana yeelaya dadka noocaasoo fakarkaa aaminsani talo wanaagsan qofka ma siiyaan. talada qofka ay siiyaan waxa weeye inuu wax dilo, inuu wax dhibaateeyo, inuu wax ihaaneeyo. waxa la isku yimaado dad in la isku yimaado iyo in la midoobo iyo in la heshiiyo midna ma yaqaaniine. dhaqankoodu waxa weeye in la kala adkaado, wax kale ma yaqaanin. waxyaalaha hadda fashilka ah oo adiga hawshaada ka muuqata oo weliba awal nin rajo ka qaba aad ahayd inaad dib u soo noqoto, haddana aan u malaynahayo ama dadku ay isleeyihiin rajada sidaasi aad iyo aad bay u yar tahay. way iska muuqataa ninkaasi inuu kuugu soo baxa. tillaabooyinka had iyo jeer uu qaadahayo oo weliba hadda ay u dambaysay oo midii ugu darayd ay ka dhalata ahayd gabadhii Ikraam la oran jiray la dilay ee wiilkaasi uu hortaagan yahay in dilkeeda xaqdarada ah la baaro. sidaa daraaddeed anigu waxaan u soo jeedinayaa ama adiga ha noqoto ama kuwa yacni haminaya inay Soomaaliya madaxweyne ka noqdaan nimanka noocaana ee keligood islaamka ah oo wax Allah wixii ayaga ka soo haro dhanba gaalada u yaqaanay soo dhawaysigooda waxaan khasaare ahayn ka raaci mayso. waa dad talooyinka ay bixinayaan talooyin marka horeba iqsaa'i in la fageeyo cidda ay u arkaan inay ka soo horjeedaan ay ku dhisan tahay wey. marka qofkii dadkaa soo dhawaysaa wuxuu la mid noqonayaa muxuu ahaa islaantii uu batadii yarayd gurigeeda inta keentay ee rideeda caanaheeda ku korisay. uu batadii markii ay kortay kabacdi ridii ay aragtay iyadoo rideeda caloosha ka dilaacisay oo markaa cunaysa. markaasay gabay tidhi soo waxay tidhi waqarta shuwayhatii wa fajacta qalbii. waxaad dilaacisay bay tidhi neefkayga ariga ahay oo yaraa, qalbigaygana waad xanuujisay. wa anta lishaatina waladun rabiibu. adigoo yacni u ahaa ridayda adigoo u ah bay tidhi ilmo oo rabiib oo la barbaarinayo oo ridaasi ay nuujinayso. wudiita bidurrihaa wa rubiita fiinaa. waxay tidhi waxaa lagugu barbaariyey ayada dararteedii dhexdeennana waa lagugu koriyey. faman anba'aka anna abaaka diimu. yaa kuu sheegay aabbahaa uubata inuu yahay yaa kuu sheegay ama yeysida qofkuu yaqaan. idaa kaana tibaacu tibaaca saw'in falaa adabun yufiidu walaa adiib. haddii dabeecaduhu ay yihiin dabeeca xun edab wax ma faa'iidayso, mid wax edbiyaan wax ma faa'iideeyaan. nimankiina soo dhawaysanaya nimankaas la yidhaahdo magacaa leh ee wahaabiyada magac kastaba ha yeesheen ee la taliyaasha ka dhiganaya ee ummadda inteeda kale ka soo dhawaysanaya waxaan ogaataan ninkii qoladaasi ay la taliyaal u noqdaan aakhirka haadaan bay ku ridahayaan. waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah madaxtooyada mid la taliya ka ah ee weliba salaada tujinaya inaan arkay oo youtube-ka ku arkay asagoo odhanaya in qawaaniin wax lagu xukumo waa gaalnimo. warkii markii aan cinwaanka nucaasa aan maqlay ayaa waxaan is iri malaha waa hore waxaan ku dhuftay yacni tasjiilkii baan ku dhuftay. tasjiil hadda ah wey oo waxyaalo markaan dhacay ku soo qaadaya. marka madaxtooyadii buu la taliye ka yahay
oo imaamka yahay oo mishaar ka qaadanaya wuxuu qabaa asagoo aan kala qaadinin qaanuun waxa lagu xukumaa inay gaalnimo tahay oo markaa hadalkiisa haddii la eego ninka kanuu ag joogo iyo waxaa la socdaa gaalo u yaqaana la taliyana waa u so waxa la yaab lama xoogaagaa dareerta ee lacagta uu ka helayo ayuu fiirsanaya iyadoo xukumka qaanuunka waxa weliba markii la eego xataa wahaabiyada qaarkood taraajuc ay sameeyeen ibnulbaaz uu ka mid yahay oo markaa uu kala qaaday xukumkaas qawaaniinku waxa uu yahay iyo waxa shareecada islaamku ay ka qabto waxaan ku soo qaaday inkastoo aanan dhammayn laakiin arrimo muhiima ayaan ka hadlay muxaadaraadkayga ku saabsanaa oo assaadicuun bilxaqi aan kaga hadlaye oo cinwaanadoodu uu ahaa assaadicuun bilxaqi ayaga gaalaysiinta wahaabiyada ayaa assaadicuun bilxaqi gaalaysiinta ugu horreeyey marka qofkii doonaya meesha dib